Somali Kids TV. Nabi Ibraahim calayhi salaam xilligii uu noolaa dadkaas waxay caabudi jireen sanabyo. Nabi Ibraahim calayhi salaam aabihiis waxaa la dhihi jiray Azhar. asaga wuxuu ahay kasuubyo iyo iibiyo sanabyadaas. dadkaas xataa waxay caabudi jireen xidigaha, bisha iyo qoraxda. Nabi Ibraahim calayhi salaam wuxuu kaliya caabudi jiray Allah jalla jalaaluhu. hal maalin wuxuu asaga jajabiyey sanabyaalo badan. Nabi Ibraahim calayhi salaam dadkii waxay soo hor istaajiyeen Namruud oo ahaa boqorka dadkaas. boqorkaas markaas wuxuu go'aamiyey in Nabi Ibraahim calayhi salaam lagu xooro dab weyn. Allah dabka wuxuu ku amray iyo qabow noqdo iyo meel Nabi Ibraahim calayhi salaam nabadgelyo ku joogi karo. Somali Kids TV.